gaar ahaan degmada Jalalaqsi geeskiisa koonfura meel u jirta 25 kiiloomitir oo la yiraahdo Qoryaale waa garta niya roob baa nagu yimid waqti adiga 12 saac iyo 20 daqiiqo roobkaas oo da'ay muddo adiga 20 daqiiqo oo da'ay roobkii markuu naga qayooday oo roobkii markuu qayooday laakiin dhulku biyeysan yahay ayaa dadkii dhalinyarta banaanka joogay garoon oo lahaa jiray dhalinyartu ku ooshay galabtii amba ay barooni waxaas ay ku cayaaraan dadkii banaanka jooga oo dadkii dukaamada iyo waxa jooga ana aynu dudaa beledka soo dhaxmara war magaala guuraysa ayaa maqalna markaa waa gartay umadii banaankii u soo baxnay wixii indhaha bakku niri waa dumay tuulada waxay ka haastaan dhinaca oo raac u dhaca oo galbeedka ah ay wuxuu naga haastaan waa gartay wuxuu dhul baaxad weyn ay haastaan marka waxa ku arkaysaa muga dhinaca ay ka guuraan u socdaan koonfurta u socdaan waqooyigana waa ka socdaan waa gartay wuxuu arkaya dhulka inta ka dhacay waa dhisayiin waa magaalo dhamo guurayso dabaqyalaho maraayadalaho adiga masaajidalaho geedalaho baararlaho siimalo wax walba ay leeyihiin adiga dadkii dhacow yiri mootooyin hataa la qaatay wixii hadhow lagu yiri dad wuxuu yiri waxaanaba soo bilaqaysanayna aadayna wax weli la arkaba ma aha dadna salaadii iyo waxbooba ugu maaragtay waaba la yaabiyo salaadii oo aadaba waxa iga warantaa magaalo guuraysa ma dhulka ayay ku socotay ma koro meel sare ku socotay ma meel dhaxa say u aragteen adiga mesela hadda roob markuu dhaca ma madoobo si wanaagsan waxaanu saymo roob oo socda amal u qabtaa waa guri cirkana ka dhisan dhulkana ka dhisan oo socda dhinaca koonfurta meel kormiyo ku socda marka diyaarad oo kale ma cirku ku socoyaa mise mijawi hoose sidee u socda waa socdaan waxaas saadaal cirka iyo dhulka inta ka dhaxaysa ay ku socdaan dhinaca waqooyiga ay ka socdaan dhinaca koonfurtana badaaba ka hayso biyaha ku ka furunba imise qof baa ku aragteen ma dad yar mise dad badan dad badan ku aragnay macallimiintii dugsiga iyo waxaas hadda wax walba macallimiinta iyo kutaabtu geeday fuulaan waa la fiirina ummadii xoolihii oo raacda waxay leedahay guryo reeber guryaha laga kor dhisay adiga dad badanaba xalay guri ciddaa soo weydiin ta dhiitaga hore u xabaaba waxa weli la arkaan baa la maqlama ma waxaa arkaysaan dhismo oo keliya mise dad bini aadan xoolo waxbaad arkaysaan maya wax bini aadana aba nafleya ma arag laakiin guryahana oo daaqado u furan yihiin oo marna qaar rinji cusub u fuulo qaar maraayada yihiin qaar dahab yihiin masaajidka ugu dambeeya dhinaca waqooyiga soo xigaa daba socda marka xagee ku qiyaasteen ma dhul magaalada gudaheeda ama hiiraan gudaheeda ayaa lagu qiyaasaa dhismahaas iyo deegaankaas guurayaa tilmaamaysaa mise meel kaloo idinkaga yimaas leedaha wuu idinsoo dul maray maya dad banaanka hoose jiray oo degmada Jalalaqsi xilka naga jiray xaggaayna u soo fiirsheen ayuu ka hortana soo wacay guryaha dhisan oo dhagax oo bari ka muuqda xeeyina niri wixii hadii la fiiriyo annaka dhinaca oraxsinka inaga hayo tuulada Qoryaale dhinaca galbeedka ay ka haasteen niyow maqribkuna waa soo dhawaay waxaas marka waxa maqaadir Ilaahay wateedo Ilaahay camiray dhinaca koonfurayna u dhamaadeen wixii dhinaca waqooyigeena kulay saadaashaas nooga timid waxaas muga kullayniya waxaan weli aragna amba maaragtay dadka islaamka la tusama laakiin marka leedahay dhinaca waqooyiga u dhamaadeen degmooyin ma tilmaami kartaa jihada dhinacay jirta marka joogto Jalalaqsi degmooyinkii ku wajahanta hadda degmada Jalalaqsi waxay ka jirtaa dhinaca orax ka soo baxa anagu ugu aadana dhinaca orax ka soo baxa koonfurta baraandiriye hiiraan isaarkeeda anagu hadda jooga waya marka waxaad ii sheegtaa wax kale oo baaritaan ma sameyseen oo dadka ma wacdeen dadaal kale deegaano idinka fog in ayaguna ay arkeen dhibkan ama mashaqadan ama calaamadahan aad idinku aragteen iyo meeshii ugu dambeysay ee inta aad wacday ee ku sheegeen lagu arkay maya anaka aniga awdaad oo kulay tuulada joogaan nahay arintaas waxaan ka geli karna quraanka rabbiga ay noqdeen quraankana waa ilaa xalay ilaa hadda weli waa lala fadhiyaa
nayaa dadka kolley hiiraanna waa saaka iyo soo gaarsiinay wadamada kale dad naga soo waca waa jireen laakiin waxaaniya wax aan ku tilmaanta haddii aana maca jirin ay wax oo kolley mucjisa oo ilaahay wata ay yihiin meeshaasaaba maaragtay allihii weynaa uuntaaba ka ag dhawaanayo qur-aanka rabbiga tuulada aad joogtid meel aan ahayn ma laga arkay tuulo kale ma laga arkay magaalada gudaheeda reer hiiraan yaa kaloo arkay reer hiiraanna maal nagu aadan oo la yidhaah oomahad ma ahayn oo qatar oomahad niman jooga ayakuna jimaa goobtaa jooga dhinaca xaggayna usoo fiirinayo oo soo bariga annakuna dhinaca galbeedkaa u fiirinay marka waa isla jalalaqsi gudaheeda soo mahan aagga ay tilmaamayso waa jallaqsi gudaheeda jallaqsi dhinaceeda koonfuro waayo oo dhul baaxad weyn waayo oo dhulkaas jalalaqsi degmo aan ahayn ma lagu arkay arrintan maya laguma arag laakiin annaka dhulka joogna waa kumaan kun oo dadaha aragtay oo maaragtay dadkii xaafadihii jooga guryaha jooga haatee guryahoodii xalay ay maaragtay ay ka carareen haatee qalqal kaliya ugu carareen waa garta marka sidee igu sawiri kartaa wixii aad aragta adigu tilmaamta siin karta guryahan horta iskifaallo caadi oo dhisan camalaa u qortaa dabaqayahu waxa waa nooc walbay leeyihin waa garta dhinacay maaragtay u dhammaanayaan biyo uga furan oo bad camalaa ka haysa waa garta biyahaas waxa waa shooca camal waa badaha waa taqaanaa shooca biyahaas ku furan guryahana guryo geeda ku dhex yaalaan oo camba ku dhex yaalaan oo haama ku dhex yaalaan oo adiga matoor ku dhex yaalaan oo nooc walbaa kuu soo baxaa muga in yar joogtaba nooc kala kuu soo baxaa indhahana kuma hay kartiyo muga yar fiirida indhaha xoogaa maraayad kaa taabanaysa marka intaa oo aad tilmaamahaas aad sheegaysid oo dhan aad arkaysay oo leerar leh oo matoora leh oo guryaha noocyadooda aad arkayseen waa taagnaayeenoo waxa waa daawanayseen waa daawanayna dad waaba u dudiya oo waxaanaba soo taabsanaynaa ay yidheen maqaadir ilaahay lama taabsan karee wixii mugay u dhawaadana wixii miraqayba yidheen ummadii mugaas meeshaas nin walba indhaha madoobaada qof walba ha yaraataa si weynaatay indhaha madoobaada si meeshadii fadhiya marka ay miraq ay leeyihiin ma hawadii ku dhammaanayaan oo cirkay sare u gelayaan mise magaaladii ka fogaanayaan oo dhul kale oo idinka fogo masaafo ay aadayaan maya dhinaca dhul kaleo naga fogay u socdaan waxaas wax oo adiga cirka iyo dhulka inta ka dhexayda ku socda waaye dhinaca badda koonfura intay u dhammaadeen dhinacaas mugay u dhammaanayeen maqribaaba galan saasaa salaada lagu dayo